kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa Cristiano Ronaldo oo sharafan oo kabtan ah oo maalinka bariya ka hor iman doona Messi, West Ham oo amaah ku doonaysa Maguire, Thomas Tuchel oo Realka Premier League kusoo laabanaya iyo war kale suuqa ay soo baxayn wax ka taataban doona saaxiibayaal muuqaalkeen intaana bilaabin like saara sina share gareeysa asxaabadan ay gaadho haday tahay markii ugu horeysay ama soo booqatana fadlan rukumo kambalelkana furo saad noqoto qofka ugu horeeya ee muuqaalada ay soo gaadhaan marwaa soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ku bilowno Cristiano Ronaldo oo sharfan oo runtii kabtan ah oo kabtan u ah isku darka xidigaha reer Saudi Al Nassr iyo Al Hilal ee maalinka bariya ka hor iman doona kooxda PSG ninkani oo kabtan u ah ayaa maalinka bariya Lionel Messi ka hor iman doona maalinka bariya Cristiano Ronaldo kabtan ayuu noqon doona isku darka kooxdaasi ee PSG wadii u jii doonta runtii maalinka bariyana waxaan daawan doonaa kulan bariyaha ayna daawan labada ciyaartoy waaweyn isku wajii doonaan waa Messi iyo waliba Cristiano Ronaldo inkastoo kulankani oo kulan saaxiibtinimo yahay kulankaasi Cristiano Ronaldo waa kabtan isagoo sharfan ayuu xidigan inta badan xifaaltamaan oo ka hor iman doona runtii waxaana kulankaasi soo dhacaya maalinka bariya xilli hore ayuu kulankani daawan doonaa 8 fiidnimo ay kulankaasi way ku raaxaysan doonaa waliba saaxiibtinimo inkastoo kulankaasi si weynaynayo labadan ciyaartoy waaweyn runtii muddo dheer soo xifaaltamay muddo aan wada ciyaarin runtii kulankani isku hor iman doona wararka suuqa runtii waxa soo xoogeysanaya oo saacadii ugu dambeeyay lagu soo waramaya kooxda West Ham waxay Manchester United ay ka doonaysaa kabtankeeda Harry Maguire waliba kooxdani West Ham ay ku doonayso heshiis amaah runtii amaah ku qaato inta ka dhiman xilli ciyaareedka inkastoo ay jireen warar sheegaya in Harry Maguire waqti horeba loogu baaqay in kooxdan isaga tago oo mustaqbalkiisa runtii uu badbaadiyo waxa soo baxay warka sheegeen West Ham ay 6 bilood ka hadhay xilli ciyaareedka ay ku doonayso laacibkani inay ku qaato amaah runtii waa laga yaabaa in Manchester United ay bixiso walow aan isticmaalin inta badan kursiga keed ku jiro hadeerna runtii uu culays badan soo wajahay Lucas Shaw baasha bidix marka hore ka ciyaar jiray uu xitaa loo daafac dhexe ma ku ciirsanayo oo Martinezki kulmada qaar la fariisanayo Harry Maguire kursiga keedka wali lagama soo kicin waana macquul inay fasaxdo soo kale waxa la isla dhex marayaa Thomas Tuchel waxa leeyahay uu diyaar u yahay inuu wada hadal la furo kooxda Tottenham وهدي أنتوني كونتي وكتب كوحدة إنكستو كونتي يشيس كيسا كوحدة توتنهام وقاب سي هاي حتى لو ديدي يشيس وقت ديارة كوحدة وصححة رنتي توماس توخل تاني أمريكا كوحدة تشيلسي لقاري بلا شقاه ونكر باقا موضاع رنتي توتنهام وحالي ديارو ياه نفرو وابلغا يابا نينكر هوريالك بريمير ليج ونسي دقصا وقصو لابتبا دوان لقاري كوحدة توتنهام وقبتو توتنهام وحال عياريد كان بلوغا سورنتي قافي عنكو بلابتي حاجيتن بواحس كبدلين kaalinta labaad baa fadhiday hadeena waxa marsaaba in afarta sare lagu dhaabo ka samir oo kulmo waaweyn isku xigsi kulanka dhaw Arsenal tutay maalinka bariyana ay Manchester City ay foodistri doonaan intii kulan Realka Premier League labadan kooxood ciyaari doona inkastoo kulan 12 habeen ma daawan doono waa kulan imtixaan oo imtixaan si marayso kooxdan Tottenham oo afartida kaalmood ka sii fogaaniyo ama Manchester City iyaduna mar horeba ay iska soo dhibto kaalmaha oo laftigeedu horyaalka ay ka samirto Thomas Tuchel Tottenham bal la xirnay inuu qaban karno weeye waa macquul hadii Antonio Conte uu kooxdaasi ka tago Bayern Munich ayaa heshiis runtii dhameystiran la gaadhay goolhaye Sommer awayana lagu balansan yahay in caafimaadku mar laacibkani goolhayan way dhameystirtay heshiis wala gaadhay kaliya in heshiiska caafimaadku maro oo laacibkani soo bandhigto ayuu baadhiman soo kale waxa leeyahay Alexander Garnacho laacibka daadiyar ee kooxda Manchester United ay waxa leeyahay waxa uu ogolaaday inuu heshiis cusub u saxo kooxdiisa Manchester United inkastoo jireen warar soo baxaya in kooxda Real Madrid ninkan ay xiiseynayso runtii kooxo kale oo waaweyn oo qaaradda Yurub oo laacibkani xiiso ka helayo waxa leeyahay wuxuu diyaariyay heshiis ilaa 2029 oo welina runtii ikhtiyaar sanada u dheer yahay wuxuu mushahar ahaan u qaadan doonaa in ka badan 300 in ka badan 30,000 toddobaadkii ayuu qaadan doonaa ilaa 2029 ay kooxda Manchester United doonaysa xidigana daadirina ka saxdo runtii diyaar ayuu yahay kooxdiisu waqti dheer sii inkastoo aan meesha laga saari karin suurtagalnimada kooxaha kale waaweyn ee xiisanaya hadii aan laacibkeeru fikirkiisa aanu bedelin laakiin hadeer waxa leeyahay diyaar ayuu yahay laacibkani
inuu kooxdiisa Manchester United uu saxeexo heshiiskaasi waqtiga dheer ilaa 2029 gaarsiisan. waxaa leeyahay runtii ay FIFA ay shaacisay runtii dadkii daawanayay kulankii finalkii koobka adduunka runtii caalamka oo dhan ay daawanayeen dad lagu qiyaasay 1.5 bilyan 1 bilyan iyo 500 milyan oo ruux ay habeenkaasi daawanayeen oo 2 saacadood ay dhalada ay hoos fadhiyeen. runtii waxaana laga joogaa maanta 1 bilyan markii Lionel Messi oo koobkiisa ugu horeeyay adduun uu qaatay. runtii 1 bil kadibna waxay FIFA soo saartay majority dadkii daawanayay runtii waa la qiyaasoon 1.5 bilyan 1 bilyan iyo 500 milyan oo ruux ay halkaasi habeen daawanayay. runtii waa dad aad u badan oo kulankaasi hoos fadhiyay oo daawanayay runtii koob adduun. saameyntiisa runtii waan ka warhaynaa dadkaasi dad ka badanba runtii kulankaasi finalka waa daawan karaan. waxaa leeyahayna waxa isbedel weyn lagu sameeyay isticmaalka muuqaalka caawiyaha garsooraha ee loo yaqaan VAR. waxaa runtii go'aamada ay garsoorayaashu qaadayaan runtii faham buuxa laga siin doonaa taageerayaasha garoonka dhexdiisa fadhiya iyo waliba kula telefishinada ka daawanaya. runtii sidoo kale waxa runtii la qancin doona bal leeyahay tababarayaasha garoon gudihiisa, taageerayaasha garoon gudihiisa ku sugan iyo waliba kuwa dhalooyin ka daawanaya. runtii nidaamkaasi cusub ayaa nidaamka caawiyaasha tababarayaasha ee loo yaqaan VAR lagu soo gudbin doonaa. runtii dhan kasta ay noqotaba taageerayaasha iyo waliba tababarayaasha labada kooxood laga qanciyo go'aankaasi ay VAR soo gaadhay. oo runtii haddii noqoto dhan kastaba runtii laga qancin doono dadka garoon ku sugan iyo kuwa garoon ka baxsan ee dhalooyin ka daawanaya. isbedelkaasi weyn ayaa lagu sameyn doonaa VAR-ta in runtii aad loo runtii shaki saaro garsoorayaasha tarabuunka garoon ku sugan iyo waliba kuwa ka baxsan. saas ay ku dadaalaysaa VAR-tu. nidaamkaasi cusubna ayaa lagu soo kordhiyay. waxaa leeyahay Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa heshiis ka gaadhay xidiga Memphis Depay soo wareeg kooxda Atletico Madrid lacag dhan 3.5 milyan. qiimahaasi ay Barcelona iyo Atletico Madrid ku gaareen in wariyaha kale dhankaasi Atletico Madrid uu maro. Atletico Madrid waxay doonaysaa in laacibka reer Holland ee Memphis Depay ay ka dhigto bedelka saxda ah ee Joao Felix. Joao Felix 6 bilood ka maqnaan doona iyaguna xidigaas ay doonayaan hadeer inay ku sii xamaashin kasto xaalka Atletico Madrid sanadkan laga deyrnayo champion ka soo hadhay runtii koob kala seegtay horyaalkii heerkeedu aanu fiicnayn. sanadka Atletico Madrid waxa weyn ay ka qaldan xitaa ay jireen walaal isla dhexmaray oo la sheegay tababaraheeda Atletico Madrid ee Simon runtii laftigeedu leeyahay waa iscasiliyaa shaqada waa laga heriyaa. runtii sanadkani wareer ayaa soo galay kooxda Atletico Madrid. hadina waa koox saxeexaasi Atletico Madrid waxay dhameystay Memphis Depay oo intii lagu soo warramay heshiiskaas la dhameystiray kulina uu dhiman yahay shaacintiisa wali ninkan inuu soo maro caafimaadka. waa ka heshiiyeen qiimaha ku heshiiyeenna waa 3 milyan waa 3.5 milyan 3 milyan 400,000 ay ku heshiiyeen labadani kooxood. xidiga reer Barcelona reer Spain ee Sergio Busquets ayaa heshiis 20 milyan oo euro oo sanadkii ku qaadan lahaa ka diiday kooxda reer Albaid Al Nassr. warkaas lagu soo waramayaa in xidiga reer Spain ee kooxda Barcelona khadka dhexe ee runtii xirfadiisa sanadii ugu dambeeyay ku raaxaysanaya. waxaa lagu soo waramayaa in heshiis 20 milyan sanadkii u qaadanayo ay soo mareegtay kooxda reer Saudi Al Nassr ee sanadkan dib u dhiska fara badan sameynaysa oo xidigooyin waaweyn oo qaaradda Yurub indhaha ku haysa oo doonaysa si xoogan in safkeeda ay u dhisto. lagu soo waramayaa qiimahaasi uu ka diiday laacibkani in dhankeeda uu ku soo maro. warkaas ayaa soo baxaya saacadii ugu dambeeyay. muuqaalkeena waa naga taas saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale. والسلام عليكم.